xaaladda ammaanka ee uu dalku marayo runtii aad bay u liidataa mar haddii ay noqotay axsaabtii mucaaradka in run ahaantii la farageliyo oo gacan loola tago run ahaantii waa arrin aad iyo aad u xun khalkhal amnina run ahaantii abuuri doonta waxaa jirta niman siyaasiyiina run ahaantii oo la moodayo doorasho inay u socdaan run ahaantii aan doorasho u socon doonaya inay dalkan dagaalo sokeeye iyo muxuu hayay barbalaamiyo dalka inay geliyaan run ahaantii ummadda ilaahay iyo ummadda islaamka iyo xayawaanaadku raxmaddu markay daato dhawaqa muxuu hayay dhibcaha roobkay ku raaxaystaan laakiin waxaa jirta rag ku raaxaysanaya dhawaqa rasaasta sokeeyaha doonaya dalkan inay qallaasa sokeeya run ahaantii geliyaan niman waxa weeyaan ku faa'iido ku macaasha maxay marka dagaalka sokeeyo dhacaan oo mar ay dalka gudihiisa ay hanti shacab guryo iyo beeraba inay ku boobaan marna dalka dibadiisa jaaliyada dalka dibadiisa ku nool oranaya muxuu ahaayay noo soo gurmaday oo dalka maxay u soo gurmaday oo beeshii laga saar magaaladii oo dhaqaale ku urursanaya hadhow toolana dalkan wax ay u soo jiidayaan iyo waxay gelinayaan toona run ahaantii aan jirin ragaasaa jira insha Allah meel walbana way ku jiraan xisbi walba way leeyihiin beel walba oo Soomaaliland ka midana way leeyihiin marka dadkaas in meel looga soo wada jeesto oo qoonyahanadu waqtigii qalinka weeyaan maanta xamso waqtigii qalinka ayaa shaqeynay maaha waqtigii qoriga waanu mahadcelinayaa ragga aqoonyahanada ee dalka ku soo qulqulaya ee axsaabta qaranka ku kala biiraya ee ugu dambeeyay imaka aqoonyahan Maxamed maxaaye bile Mr Bile ugu dambeeyay kulmiye ku biiray waxaan rajaynaynaa inuu kulmiye wax badan oo run ahaantii ka beli doono waxaan aaminsanahay dalkan ay u soo kaceen dhalinyar aan ku xidhneen qabqablayaal dagaal iyo hogaamiye kooxeedo aan ku xidhneen inay dalkan u soo kaceen dalkan waqtigii qalinka la gaaray oo qalinka loo shaqeyn doono Ilaahay idinkii xogagal run ahaantii ayaan u ahay wargeyska Star Ben cad oon jirin buu run ahaantii qoray in badanna waanu ka hadalnay warbaahinta waanu ka sheegnay waxalaaliyo wixii qodobadii iyo meelihii aan marnoo dhan iyo maalin walba kulankii aan yeelanoo dhan run ahaantii waan baahinay wargeyska Star wuxuu soo baxay maalintii 12kii bishan ayuu run ahaantii soo baxay wargeysku 3 beenood buu sheegay mar waa marka koobaad wuxuu yiri 20kii bisha ay Umar Cabdirashiid ku kulmeen magaalada Nairobi marna sawir photoshop run ahaantii laga wada dharagsay wuxuu yahay ayuu sheegay marna wuxuu qoray uu sheegay inuu yiri madaxweyne Siiraayo ayaa u sharaxan xisbiga kulmiye run ahaantii taasoo been cada oo cid walbaaba ay ka dharagsan tahay inay tahay marka run ahaantii dad badan baa faafinaya xisbigii kulmiye odayaashii waaweynaa ayaaba run ahaantii faafinaya niman tujaara oo xisbiga kulmiye taageersan oo waliba nin kaliyaata ah oo aad iyo aad maanta dagaal xun kula jira axsaabta qaranka inuu burburiyo ninkaasa ka dambeeyay anigu aan aaminsanahay inuu ka dambeeyo run ahaantii ninka waqtigiisina way iska dhamaatay oo iska soo gabagabowday waayo waxa la ogaaday run ahaantii 7 dawladood inuu maandooriyaal u tahriibiyo oo ku shaqeyso maandooriyaal inuu tahriibiyo waxa xoga rasmi run ahaantii marka soo baxaya oo ilaa bishii ugu dambeysay laamaha ammaanka iyo Interpolka iyo ammaanka dawladaha Khaliijka Sacuudiga iyo Imaaraadkuba ay ka shaqeynayaan sidii ay ninkaas ay ugu hortagleen sababtoo ah wuxuu ninkaas shidaal iyo petrol ka iibiyaa xoothiyiinta isagoo gacan saar la leh run ahaantii Iran dhaqaalahan wareerka ah ee uu axsaabta qaranka u gelinayo inuu ku baabiyo meeshuu ka geenayaa waxa weeyaan shidaalka uu ka iibiyo xoothiyiinta ee la wada og yahay maanta caalamul carab ay run ahaantii og yihiin maalmo dhow insha Allah ta'ala talaabo laga qaadi doono annaguna malaf iyo fayl baan run ahaantii ka diyaarinay la wadaagi doono alaamaha ammaanka ee dawladahaas iyo Interpolka ba aan u doona insha Allah ta'ala shidaal iyo hubba inay u tahriibiyaan ay doonayaan Soomaaliland wuxuu doonayaa ninkaas jacayl oo caashaqay xisbiga kulmiye maanta midna maaha wuxuu doonayaa in uu dalkan maandooriyaal iyo mukhadaraad iyo muxuu ahaayay base كمحايا جيسك أفريقيا من دورياش أو كفافية إنه كدكتور بيس عالمية أو عالم كوكو كلا درس سيدا مكلا ودوجي تدبات دولات بو أيو تهريبية محايا من دورياشة مركا إن شاء الله تعالى ولا جهر كتجي دونا أنا جو حاجة حدير كعربتها وما أقولان دونا إن شاء الله تعالى إن دولتها عربت ذلك يجي لجا جدوله بإذن الله تعالى أنا كعم برا لقو قبض دونا